waxaan maanta ka hadli doonaa haddii la iraahdo baagamuudada oo ah mawduuc Soomaaliya caqabadaha haysta Soomaaliya kamid ah wax badan sidoo kale dadka igu soo weydiiyeen comments-ka igu soo weydiiyeen marka waa baagamuudo maxaa la yiraahdaa yaase baagamuuda laba wax definition la isticmaala ama laba qeexita midka loogu isticmaalka badan yahay waa midka la yiraahdo American definition ama sida Amerikaanka ay baagamuudada u sheegaan waxay dhahaan qof raba inuu shaqeeyo aan shaqo haysan 4 asbuuc ee la soo dhaafay hal saac oo kamid ah oo uu lacag ku qaadanayo aan shaqeyn qofkaas waxa la yiraahdaa baagamuudo qofka hadii uu asaga shaqada rabin baagamuudo ma aha shaqada uu qabto haduu lacag ku qaadanayo sida shaqooyinka hooyooyinka guriga oo ay qabtaan oo kale ma an shaqa ma so waxay kamid ma noqonayso waxa loo yaqaan baagamuudada kamid noqonayso baagamuudo markii la dhaho 4 meelood ay ka timaadaan meesha koowaad waxa la yiraahdaa frictional unemployment waa marka uu qofka baagamuudo yahay laakiin laba shaqo u dhaxayso kale shaqo ka tagay shaqo kale u raadina jaamacadu soo dhameeyay shaqo u raadina ama sidoo kale hooyo ahayd oo ka soo baxday caruur koriskii oo hadda rabta shaqada inay ku laabato oo shaqo raadinayso kuwaas waxa la yiraahdaa frictional unemployment waxayna ku xiran tahay waqti waxay u badan tahay qofka inuu shaqo helo nooca labaad waxa la yiraahdaa seasonal xilliga u sababa tusaale markii ay da'aan roobabka kale ama badaha ay ka casayn kalluumaysatada ma shaqay karaan baagamuudo way abaaraha kale markii ay jiraan oo kale beeraleyda ma shaqay karaan baagamuudo way xilliga u sababa seasonal la dhahaa inta badan labadaas baagamuudo dawladaha waxba kama qaban karaan iyo suuqyada waxa soo haray laba kale mid waxa la yiraahdaa cyclical waxa sabab u ah hoos u dhaca dhaqaalaha hadii dhaqaalaha hoos u dhaco shaqaalaha qaar kamid ah shaqada laga ciriya hadii uu dhaqaalaha fiicnaado qaar kamid ah shaqo helo soo shaqada ku xiran helisteedii waydiida dhaqaalaha ay ku xiran tahay waxa la yiraahdaa cyclical waa shaqada inta badan dawladaha loo qabsado ama dadka ay dawladda ku eedeeyaan hadii dhaqaalaha hoos u dhaca dhaqaale u yimaado shaqo la'aanta dhacdo way nooca afraad waxa la yiraahdaa structural waa shaqo ama shaqo la'aan ay sabab u tahay qofka oo xirfadiisa ay hooseyso ama wax la yiraahdo technological obsolescence qalabkii uu ku shaqeyn jiray oo laga guuray tusaale dadkii yaambada iyo dibiga ku beeraha ku fali jiray waxay shaqo la'aan ku dhacday markii cagaf-cagafta la alif waa shaqada laga yaabo dadka inay lumiyaan ama hadda waxa AI la dhaho artificial intelligence ee la hadal shaqo la'aanta inay sababto laga yaabo way soo marka si shaqo la'aantaas xal loogu helo dawladaha inta badan waxay ku dadaalaan inay shaqo abuur sameeyaan laakiin aad ay u adag tahay dawlad inay ku guuleysato shaqo abuur taariikhdana dawlado badan oo isku dayay oo laakiin aan xal u helin kamid ah aajay salaadiyaan soo qaat Francisco kala baagamuudada si u xaliyaan shaqada dadka ay shaqeeyaan asbuuci 22 saac laga dhigay soo jeedeen 30 saac laga dhigay arrinkaas marka dadka oo loo baahanaya badanaya because of qofka asbuuci 40 saac inuu shaqeeyo hadii 20 saac uu shaqeeyo qof kale loo baahanaya so waa problem caanayn noqotay oo Francisco caan oo ku yahay oo la yiraahdo baagamuudada iyo laabeen ma ahane ama dadka dhanay waxay ka dhigeen half time inay shaqeeyaan waxba kama aysan bedelin baagamuudada waxba kama aysan bedelin so kiiska ama xaalka Soomaaliya markii si gaar ah u daraasayso baagamuudada Soomaaliya dhowr waxyaabood sabab u ah oo ah fiidiyogan ujeedada uu leeyahay sababta koowaad waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxa aad u badan wax la yiraahdo disguised unemployment ama wax la dhaho underemployment oo ujeedada laga leeyahay ay tahay dadka hadda shaqeeya ma kuwa shaqo la'aanta kuwa hadda shaqeeya wax soo saarkooda hooseeya soo sidaa darteed ma awoodaan inay shaqo u abuuraan dadkan hadda shaqeeyo arrinkaas hadii wax yaraan faahfaahay hadii awoodda qofka shaqaalaha ee wax badan uu ku soo saari karo ay hooseyso ma dhacaysa in qof kale loo baahdo asaga shaqada joogi doona soo qofkii banaanka joogo wuxuu joogi doonaa banaanka kambaniyada markay rabaan inay wax shaqaalaysiiyaan gaar ahaan private-ka oo ah qaybta inta badan Soomaaliya dadka wax shaqaalaysiiya
si ay qof u shaqaalaysiiyaan waxaa qasaba in mushaarka qofka shaqaalaha uu qaadanayo waa inay ka badataa qiimaha ay joogaan waxa uu soo saaro. tusaale qofka haddii bishii uu ku shaqeeyo $500 waxa uu kambaniga u qabto qiimahoodu waa inay ka badan yihiin $500 markaasuu kambaniga wuxuu shaqaalaysiin karaa qof kale shaqaalaysiin kara. haddii ay ka yaraadaan wuxuu kambaniga ku khasbanaanaa inuu dadkaas shaqada ka ceeriyo si uu ilaaliyo balansigaas uu ilaaliyo. kambaniyada marka sida uu sheegay waxa la yiraahdo wage rigidity markii uu Keynes ka hadlayo wuxuu sheegay contractii dadku u shaqeeyaan soo qofka maalin ama ceeri kartid maalin dib uma shaqaalaysiin kartid soo marka waxay ku qasbayeen dadkaas inay iska haayaan ku qasbayeen. Soomaaliya waxyaabaha shaqada lagu helo waxaa kamid ah qofka inuu qof qaraabanimo ku helo ama saaxiibtinimo uu ku helo wax soo saarkiisa oo liita marka uu joogo shaqadii uu sii joogo. soo marka qofkaas wuxuu booska ka haysan doonaa qofkii la rabay inuu shaqada soo galo. shaqa marka inta badan dawladda hadda ay aad uga hadasho shaqo abuur in sameeyaan ama siyaasiyiinta ay ka hadlaan laakiin waxa xaqiiqa waxa aad u adag in la sameeyo shaqo abuur. sababta aan shaqada loo abuuri karin saddex caqabado waaweyn ay leedahay. caqabada koowaad waxa waaye skill-ka ama xirfadda dadka hadda shaqeeya oo xirfadooda ay hooseyso. dadkaas inay xirfadahooda hooseeyaan waxaa sabab u ah waxbarashada ama nidaamka waxbarasho ee waddanka ama jaamacad ha ahaado ama iskuul ha ahaado. jaamacadaha waxaa haysta oo aysan shaqo abuurka uga qayb qaadan karin saddex caqabadood. caqabada koowaad waxaa la yiraahdaa skill mismatchment. xirfadda looga baahan yahay suuqa iyo xirfadaha jaamacadaha ay soo saaraan kala duwan. jaamacadaha markii ay kulliyad cusub furayaan ama ay arday cusub qaadanayaan uma fiiriyaan baahida suuqa ee waxay fiiriyaan awoodda jaamacadda ay u leedahay. tusaale ahaan oo kale Soomaaliya waxaa looga baahan yahay engineer oo jidadka loo baahan yahay laakiin jaamacadaha waxay bixiyaan engineer koronto ama engineer dhismeediiba ayagoo fiirinaya awoodda inay dhigi karaan ma fiiriyaan laakiin suuqa maxaa looga baahan yahay. caqabada kale oo jaamacadaha haysata waxaa waaye access-ka dad badan oo waxbara lahaa oo dadkii saxda ahaa waxaysan awood u lahayn jaamacadaha inay dhigtaan. mid saddexaadna waxa waaye quality. so jaamacadaha waxay qayb weyn ka yihiin marka haddii aysan skill-ka shaqaalaha kor u qaadi karin ayagaa waxay yihiin source of unemployment. midda labaad waxa waaye wuxuu shaqo abuur dhacaa awoodda wax soo saar ee shaqaalaha markii ay badan tahay sida aan soo sheegay. awoodda wax soo saar ee shaqaalaha waxaa kor u qaado qalabka lagu shaqeeyo capitalka wax la yiraahdo capital accumulationka ama qalabka shaqo oo kambaniga uu haysto. kambaniyada qalabka ay ku shaqeeyaan waxay u badan yihiin Soomaaliya qalab waa hore la isticmaali jiray oo aan casri ahayn sababtoo ah aqoonta loo isticmaali karo jirin iyo qalabka modernka oo qaaliya wadankana kama jiro financial system ama financial sector maalgashi ay heli karaan. so access to finance oo yar waxay caqabad weyn ama qayb weyn ka tahay inaan investment la sameyn karin. haddaan investment la sameyn karin shaqo lama abuuri karo. midda saddexaad waxay tahay waxay shaqo abuur u dhacaa marka income-ka dadka uu badan yahay. income-ka dadka oo badan wuxuu qayb ka qaataa wax la yiraahdo purchasing power awoodda wax gadasho ee dadka. haddii dadka wax badan gada karaan wax badanaa la soo saari karaa. haddii wax badan la soo saaro dadka aysan gada karin waxay sababtaa recession oo ayadana keeni doonta waxaan la dhaho cyclical unemployment oo ah tii hadda aan ka soo hadlo. so dawladaha marka saddexdaas caqabadba dawladaha way xalli karaan. maalgashi in la helo quality waxbarashada kor loo qaado iyo sidoo kale in laga shaqeeyo. dawladaha waxay wax badan ka qaban karaan capital accumulationka ama capitalka ay haystaan kambaniyada wax soo saar ay haystaan iyo awoodda wax gadasho dadka. tusaale awoodda wax gadasho dadka dawladdu waxay ka qaban kartaa haddii lacagta waxbarashada iyo caafimaadka ku baxda dawladda ay yarayso ayada ay taageerto social protection ay samayso waxay qayb ka qaadan kartaa dadka inay wax badan gada karaan income-ka soo hayo. dawladda saas sameeyo caan ku ah jiro oo South Korea iyo Japan ay ka mid tahay. Soomaaliya waxaa arrinkaas u sii dheer oo baadmoodadeeda qayb weyn ka ah welfare-ka ay dadka haystaan. welfare-kaas waxaa Soomaaliya generate gareeya diasporada. dhalinyarada ama qoysas badanaa waxay ku tiirsan yihiin lacaga laga soo diray dibadda. sidaa darteed qofka haddii uu bishii heli karo 300-200 uu ku noolaado wuxuu u baahan yahay ama wuxuu qaadanaa shaqo intaas ka badan bixinaysa
haddii marka uu shaqada uu heli kara ay $200 tahay dibaddana oo 200 ka helo wuxuu dooranaa qofkii inuu noqdo unemployed inuu noqdo so ayadana waxay ka qayb weyn waxaa kaloo baagamuudada Soomaaliya qaybka abaaraha oo hoos u dhiga wax soo saarka beeraha iyo conflictiga oo dadka inay qaxaan iyo waxyaabahaas keen so dawladdu waxay xalli kartaa baagamuudada ama shaqo abuur ay sameyn kartaa haddii ay awoodda wax soo saaraya dadka kor u qaadi karto ama awoodda wax gadasho ee dadka ay kor u qaadi karto markaas ay shaqo abuuri kartaa waxyaabo marka waxaa dhaco dawladaha ay sameeyaan su'aal mar walba dawladda ay lacag suuqa geliso ayadoo shaqo abuurayso shaqo ma abuurtay waxay abuurtaa baagamuudo waxay abuurtaa sicir barar kaas oo dhibaato ku sii keeni doono unemployed baagamuudadii meeshii ay taagnayd ama waxay sameeyaan waxa loo distribution su'aal haddii wasaaradda howlaha guud ay dhahdo waxaan shaqaalaysiinaa 1,000 qof tusaale ahaan 1,000 qof oo shaqo cusub ma aysan abuurin waxay sameysay 1,000 qof meel kale ka soo qaaday so meeshaas hadhow waxay ku qasbanaa doontaa inay shaqaale kala qaadato haddiisan awoodda ay u lahayn ay shaqaale ku qaataan waxa natiijada waxa dhaca waxay noqon doonaan distribution ama resource transfer waxa la dhaho maahan inay abuuri doonto shaqo so haddii la rabo marka baagamuudo in la xalliyo wuxuu u baahan yahay system guud oo isku xiran oo dawladnimaduna ay asal u tahay si shaqo abuur loo sameeyo ama baagamuudo loo yareeyo waa mahadsantihiin